بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel buu joogtiin iyo soo badnoo maqlaysiin ku soo dhawaada qisooyinka xiliyadan oo kale aad inooga barateen hawada in kaga soo baahino war qisadeena caawana waxaan ku soo qaadanaynaa wiilkii agoonka ahaa oo guuleystay iyo qofkii dadka caawin jiray labadaas qodob ayaan dul istaagaynaa waan laba qodob oo wax weyn laga baran karo qofta dhamaysata ilaa dhamaadkana ay ka fahmi doonto sababta qisadan aan u soo qaadanay fadlan subscribe like share si daawadayaal bal maxay kula tahay inuu ku guuleysto wiilkii yar agoonka ahaa muxuu uga duwnaaday kuwa aabayaasha lahaa ee aan nolosha ku guuleysan maxaa sababay inuu ku guuleysto nolosha oo uu sameeyay dhamaantood waxa soo idil waxaad ka baran doontaa barnaamijkani inta aan ku guda jirno muxuu tahay guulaha waaweyn oo gaaray ninkii dadka caawin jiray dadka muxuu ka caawin jiray sababta uu caawin jiray maxay ahayd maxay taas guush oo helay oo aysan helin dadka aan dadka caawin jirin waa hagaaga sheekada haddaan guda galno ama qisada wiilkii agoonka ahaa ee guuleystay magaalo yar oo ay ku nool yihiin dad faqri ah dad badanna ay halkaasi xaalad adag ku haysatay waxaa ku noolaa jira wiil yar oo lagu magacaabi jiray cabdi waxa uu ahaa agoon aabihii waxa uu geeriyooday isaga oo yar hooyadiisna waxay ahayd haweeney xanuunsan oo aan dadka dharka dhaqda noloshana halkaasi ka soo saarta guriga uu ku noolaay waxa uu ahaa guri aad u yar oo ka samaysnaa cooshado waxaana uu dareemi jiray xaalad adag xilliga guriga uu ku jiro garaan waqtiga roobka uu daayo roobka marka uu daayo biyaha ayuu soo deyn jiray guriga yar ee ay ku noolaayeen qoyskaasi laakiin inkastoo ay faqri ahaayeen gaajo daranna ay hareerahooda taallay cabdi waxa uu ahaa hal riyo wiil ku taamayay inuu maalin u gaaro inuu maalin u noqdo dhakhtar dadka badbaadiya naftiisana badbaadiya subax kasta isaga oo caruurta la socda una raacayo iskuulada xilligay aadayaan ayaa waxa uu dadka guryaha hor fadhiya oo ku oran jiray maalin uun ayaan caruurtiina daaweyn doonaa waxa uu qaadi jiray biyo waxa uu dhaqi jiray gawaari waxaana uu nadiifin jiray guryaha dad badani ay ku nool yihiin waana ay ku qosli jireen xilliga shaqada uu ku jiro qaar waxa ay oran jireen adiga miya dhakhtar noqonaya qaar kalena waxay oran jireen xitaa kabaha aad xiran tahay waa jeexan yihiin cabdi waxa uu aamusi jiray xilliga hadalladaasi ay dadku ku yiraahdaan laakiin hamiin kasta marka uu hooyadiis dhinaceeda fariisto waxa uu oran jiray hooyo maalin ayaan kaa saari doonaa dhibaatada maanta ku haysata hooyadiis indhaha ilmo ayay ka soo saari jirtay waana ay dhoolla caddayn jirtay waxa ay oran jirtay wiilkaygiyow dadka ha dhegaysan qofka sabra ayaa hela sadkiisa waxaana imaan doonta maalin aad nagu filaato maalin aad u kulul cabdi waxa uu ka shaqaynayay guri weyn oo uu lahaa nin taajir ah oo lagu magacaabi jiray xaaji bashiir cabdi isaga oo biyo sita ayuu ka soo baxay halkii uu ku jiray waxaana halkaasi ay si weyn ay ula yaabeen dadka guriga jooga iyagoo ku yidhi waa maxay sababta aad biyaha ugala soo baxday dhalada aad ayuu uga naxay warkaasi maadaama uu ka shaqaynayo guriga xaaji bashiir oo si xanaaqsan uga hor yimid ayaa ku qayliyay wiilkii yaraa kadib markii uu arkay buuqa badan ee guriga ka taagan doqon yahow waxaad tahay agoon aan waxba noqonaynin ayuu ku yidhi dadkii meesha joogay waa ay wada qoslayeen cabdi qalbigiisu waa uu dhaawacmay laakiin isagoo ilmeynaya ayuu hoos ka yidhi maalin ayaan noqon doonaa qof dadka dhami ay ixtiraamaan sanad
kadib ayaa ka soo wareegtay. cabdi ma uusan quusan. maalin ayuu shaqeeyey. habeenkii waxa uu baran jiray iskuulka. mararka qaar isaga oo aad u gaajaysan ayuu buugaagtiisa la seexan jiray uuna ka qaadan jiray guriga. kadibna dib ayuu ugu soo laaban jiray ayadoo ay soo oolin guriga cunto uu ka cuno ayuuna baahida ku jiifan jiray. laakiin weligii ma uusan joojin inuu riyadiisa uu ka dhabeeyo. ugu dambayntii maalin ayaa timid. cabdi waxa uu noqday dhakhtar weyn oo dadku ay ixtiraamaan, si weynna dadka deegaanka u daweeya. dadkii markii hore ku qoslayay hadda waxa ay noqdeen dad ku faana aqoontiisa iyo inay garanayaan. hooyadiis markii ay aragtay isagii oo xitaa dharka dhakhaatiirta wata, ilmada ayaa ka soo daadatay. waxa ay ku tiri, alle ma dayaco qofkii sabra. maalin kadib cisbitaalka waxaa la keenay nin xaalad adag ku jira. dadkii oo dhan way ka naxsanaayeen ninkaasi la keenay cisbitaalka xaalkiisa. markii cabdi qolka galay waxa uu arkay ninka markii hore yasayay inuu yahay. ninku waa xaaji bashiir, maanta la hor keenay dhakhtarkii. ninkii waxa uu aad ayuu u tabar yaraa, indhihiisana cabsi ayaa ka muuqatay. markuu cabdi arkay ayuu madaxa hoos u dhigay isaga oo xishoonaya. waxa uu yidhi isaga oo cod aad u hooseeya kula hadlaya, cabdi waan ka xumahay, waan ku xumeeyey, umana qalmayn wixii iga kaa dhacay. qolka oo dhan wuu aamusay. dadku waxa ay sugayeen inuu ka aarguto, laakiin cabdi si degdega ayuu u dhoolla caddeeyey. waxaana uu ku yidhi, waxaad i bartay inaan xoog yeesho. kadibna si sharaf leh ayuu ii daaweeyey ayuu yidhi xaaji bashiir oo ka hadlayay. xaaji bashiir ilmo ayaa ka soo dhacday. waxaana uu yidhi, maantay waxaan fahmay in akhlaaqda weyn ay tahay waxa dadka aan la fahmi karin, laakiin lacagtu ay tahay midda dadka mararka qaar akhlaaqda ka hadlayda. waano agoon ma joojiso guushaada, yacni inaad agoon tahay guushaada ma joojiso. dadka kugu qoslaya maantay barito way ku sacbin doonaan. dulqaadka iyo waxbarashada waxa ay beddelaan noloshaada. guusha ugu weyn waa inaad wanaag ku jawaabto marka xumaan lagugu sameeyo. wahagaag weli waxaan la soconnaa barnaamijkeenna qiso iyo waano. waxaad kala socotaan tv-geenna qiso iyo waana t v. fadlan sabskaraib iyo like iyo sheerna siiya oo nagu caawiya inaan meel fog gaarno saaxiibayaal. qofkii dadka caawin jiray ayaan iminkana sheekadiisa aan dul istaagaynaa si kooban. isla magaaladii waxaa ku noolaa nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray mustafa. waxa uu ahaa nin lacag badan, mana uusan haysan wax kale. waxa uu ahaa nin lacagtiisa uga faa'iideynaya bulshada, laakiin waxa uu ahaa nin qalbi weyn oo dadka isku dayayay inuu mar walba caawiyo. maalin kasta waxa uu masaakiinta siin jiray cunto, waxa uuna caawin jiray dadka waayeelka ah. waxa uu agoonta u iibin jiray dhar. saaxiibadiisna way ku qosli jireen xilliga uu samaynaya caawintaas. waxa uu ku oran jiray, adigu lacag badan ma lihid, maxaad dadka ugu deeqaysaa ayay ku oran jireen. mustafa waxa uu dhoolla caddayn jiray, wuxuuna ku oran jiray, waxaan haystaa qalbiga waa qaybin karaa oo waxa ilaahay ii barakayn doonaa. waxa aan haysto qalbi wanaagsan ayayna igu anfacaysaa. maalin roob culus oo da'ayay, mustafa waxa uu arkay hooyo carruur yaryar wadata oo waddada agteeda taagan, taas ay ka muuqato duruuf aad u daran. isaga oo wax badan haysan ayuu lacagtii ugu dambaysay siiyey. saaxiibkiis ayaa yidhi, naftaada ka fikir. mustafa waxa uu ugu jawaabay, mararka qaar
qofka ugu taajirsan waa kan dadka caawin kara isaga oo dhibaataysan. sanado kadib Mustafa ganacsade ayuu noqday weyn. waxa uu ka burburay ganacsi uu ka sameeyay meelaha qaar, waxaana uu ahaa nin si weyn ay u dareemay xaalad adag. waxa uu galay dhibaato weyn. maalin ayuu gurigiisa fadhiistay isaga oo moogaysan, laakiin wax lama filaan ah ayaa dhacay. dad badan ayaa gurigiisa yimid, qaar cunto wata, qaar lacag wada, qaar duco wata. waxa ay ahaayeen dhammaan dadkaasi kuwuu caawin jiray. waxay ku yidhaahdeen, maalintii aad dhibka ku jirnay adiga ayaa na garab istaagay, maantana annagaa kuu taagan oo ku garab istaagayna. Mustafa indhihiisa ilmo ayaa ka soo dhacday, waxaana uu yidhi, wanaag walba wuu soo laabtaa, sidaas ayaana xigmad ah. waanada qotada dheer ee aan ku soo gabagabaynayno qisadeenna ayaa waxa ay tahay, qofka dadka caawiya keligiis ma hurdo. waanada qotada dheer ee aan ku soo gabagabaynayno barnaamijkeenna waxa uu yahay, qofka dadka caawiya keligiis ma haro. wax yar oo aad bixiso waxa ay bedeli kartaa nolol dhan. samafalka lacag badan uma baahna, qalbi wanaagsan ayuu u baahan yahay. wanaag walba maalin ayuu kuu soo laabanayaa. ha quusan xitaa haddii nolosha adag tahay, maxaa yeelay dhib kasta kadib way dhammaan doontaa xaaladda, waxaana imaan doontaa maalin aad faraxsan tahay. daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow, maxaad ka baratay adigu sheekadan? maxaa kaaga baxay? miyay kula tahay inay muhiim tahay inaan dhammaanteen samayno inaan isgarab istaagno? midda kale, ereyada ku saabsanaa ee loo isticmaalay wiilkii yaraa ee agoonka ahaa miyay sax kula ahaayeen? dadka saas ula hadla dadka yaryarka ah ama ilmaha agoonta ah ama kuwaan agoonta ahayn ee aad u tabarta daran, maxaad ku oran lahayd? adigu weligaa qaladkaasu ma kaa dhacay? hadduu kaa dhacase miyaad hadda diyaar u tahay inaad dib uga laabato? waa maxay casharka halkani ku jira ee aan taa dhammaanteen inaan fahno? ninkii ganacsadaha ahaa, weliba ganacsiga yar haystay, dadka caawin jiray, mararka qaarna cuntada u gadi jiray, ee dukaankiisii ka burburay, maalinta uu gurigiisa yimid muxuu la kulmay? haddaad la socotay sheekada, dadku sababtay igu soo laabteen oo ay u caawiyeen, oy qaarkood cuntada, lacagta iyo sidoo kale ay ugu keeneen ducada, maxay ahayd? miyayse qof walbaahi sidaasi suurtagal ma tahay inay u hesho jawaab uga imaanaysa bulshada? inaad jawaab ku farxdo oo aad noloshaada iyo midda reerkaaga wax uga bedesho aad heshaahi, ma waxay ku xiran tahay inaad dhaqaalo badan haysato, base waxay ku xiran tahay daacadnimo iyo inaad bulshadaada si nabada aad kula noolaato. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتنا كل